sanadkan sanadkii ka horeeyay xilligan oo kale wax aad iyo aad u weyn ka dhacay isgooska Soobe sida u jeediin masaakiin oo waxba galabsan ayaa lagu dilay ayadoo ciyaalkooda u soo shaqo tagay hooyo Soomaaliyeed dambiil ku soo xamaalatay in isgooska Soobe lagu dilo ayadoo waxba ogeen oo iska masaakiina mise qarax ma qabato adoo Soomaali kale inaad dishid waxaasna waa wax laga tiiraanyado dadkii dhintay Ilaahay u naxariisto dadkii laga dhintay samir iimaan Ilaahay ka siiyo wax kalena ma dhihi karno Allah u naxariisto waa u jeediin waxa isbedelay dhismihii la burburiyay dib ayaa loo dhistay waxa way la shakartan la aziidanna qorta Ilaahay ugu shukrinayna Ilaahay wuxuu leeyahay dad ugu shukrsaan oo ugu shursaan la aziidannakum wa idin ziyaadin ولا إن كفرتم إن عذابي الله شديد هذا يكفر سالنا عذاب كي قادرية وأما بنعمة ربك في حديث نمعة واية وأوجد دين دارتي سيدي على الله رستي ولا لي ماشي نكون دنتي إليها ونا حرستو وابدير دار من داري آمين دعاء وابدير دار من داري وآلا خير من آله والزوج خير من زوجي وإن كيوم ما حد علنا يا نيد وناجا يا قلبي سمانتا مركو الرئيس وحنا الكام تعسي وقدرينا dhammaan eheladii dadkooda ku waxyeeloobeen qaraxii foosha xumaa oo halkan ay ka geysteen arxamanlaawayaashii diinlaawayaasha ah waxaan leenahay ilaahay samri iimaan ha idinka siiyo waxaa sidoo kale aan u ducaynaynaa dadkii ku dhaawacmay aan leenahay idinkana ilaahay caafimaad degdeg ha idin siiyo waan idin garab taagannahay waxaan u mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo u soo gurmaday dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas laga bilaabo gabdhihii iyo wiilashii yaryaraa ee soo dhiibay lacagta yar iyo buskudka iyo kuwii soo dhiibay boqolaalka kun oo dollar iyo kuwii dhiigooda bixiyay kuwii xoogooda bixiyay kuwii waqtigooda bixiyay oo isugu jira dhalinyaro culummo dawlad guddi cid walba qof walba oo Soomaaliyeed oo gacan ka geysatay qof walba Soomaaliyeed oo u soo duceysay waxaan idin leeyahay anigoo ku hadlaaya dhammaan magaca dawladda oo madaxweynaha aan ugu horeyno waxaan leeyahay waa mahadsantiin Ilaahay ha idin barakeeyo intaas ka sokow dhammaan caruurtii waalidoontood ay ku geeriyoodeen halkan maalintii iyada ahayd waxaan ku amrayaa ama farayaa wasaaradda waxbarashadu in caruurtaas lagala shaqeeyo in kulligood la siiyo waxbarasho lacag la'aan ah si ay u helaan fursadda ay leeyihiin caruurta kale waxaan codsanaynaa markaa guddigii ka shaqeeyey gurmadka dhallinyaradii nagala shaqaysay gurmadka wasaaradihii ka shaqeeyey gurmadka inay soo gudbiyaan caruurtii waalidiintood halkan ay ku geeriyoodeen magacyadooda si wasaaradda waxbarashadu ay uga caawiso inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee halkan isugu timidna waxaan leeyahay dalkani waa dalkiinni idinka ah mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed u istaaga inaad difaacdiin dalkiinna u istaaga dhisidda qarannimada u istaaga sidaa ku soo celi leedeen sharaftii karaamada ummadda Soomaaliyeed أنا